Madaxweyne Xassan Sheikh Maxamuud oo gogol dhaaf u suubiyay gabar baraha bulshada caan ka ah Subxaanallah iyo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qorsheynaya saacadaha ugu soo aadan inuu iskaga baxo magaalada Muqdisho sababo amni dartood. Gudoomiye ku-xigeenkii weynaa ee Al-Shabaab Mukhtaar Robow Al-Mansuur oo loo magacaabay wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalka Soomaaliya asagana war ayaa idinkaga haynaa. Balse haddii aad tahay markii u horreysay soo booqatay page-kan, waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad page-ka soo follow garayso si aad ula socoto warbixinadannada aan maalin walba halkan kusoo gudbino. Sidoo kale waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa in aad muuqaalka share garayso oo la wadaagta asxaabtaada si ay ayagana u runkataan warbixintan xaqiiqada ah. Waad mahadsantahay. Ku bilowna warkanaga ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xassan Sheikh Maxamuud ayaa gogol dhaaf u suubiyay gabar baraha bulshada caan ka ah, gabadhaas oo joogta magaalada Muqdisho. Gabadha ayaa hadda iskaga baxsatay magaalada Muqdisho iyada oo ku sugan magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland. Gabadha ayaa waxaa la damcay dhowr jeer laguna celceliyay isbitaalada magaalada Muqdisho iyadoo la damcay in cunuga laga soo xaaqo. Nasiib darre maxaa dhacay? Subxaanallah, muuqaalka share gareeya. Cunugii waa laga soo xaaqi waayay oo gabadha marka loo dhawaadaba cunuga wuu qaylinayaa waxa uuna leeyahay ha i taabanina. Subxaanallah, waa wax lagu cibro qaato. Muuqaalkan hala share gareeyo, hala wadaaga asxaabtiin si ay arrintan mucjisada u gaarto qof walba oo danaynayo inuu wax ka ogaado arrimahan. Gabadha ayaa waxaa la isku dayayaa in loo qaado waddanka dibaddiisa iyada oo doonaya halkaas in lagu kala keeno oo cunuga looga soo xaaqo. Subxaanallah, taas ma arrin ka dhacda madaxweyne ummadda Soomaaliyeed madaxweyne u ah oo ay dadku wada fiirsanayaan? Subxaanallah. U gudubno qodobkii labaad ee warbixintanada. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saacadahan ugu soo aadan iskaga bixi doona magaalada Muqdisho taas oo kula kulmay sababo amni darteed. Madaxweynaha ayaa waxa uu ku wajahan yahay dalka Turkiga taas oo uu degi doono. Fara badan ayaa waxa ay isdhihi doonaan awal lacagihii la aruurinayay xagee la geeyay. Laakiinse taas waxaad weydiin doontaan gudoomiyaha Cali Yare Cali ayaa waxaa la sheegayaa inuu ku aadan yahay waddanka Mareykanka, qaas ahaan magaalada Columbus, Ohio, halkaas oo lacagihii ugu badnaa ee lagu taabagelinayay dhismaha guriga mahadsanid madaxweyne ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laga soo diray. Yare Cali ayaa sababta ugu weyn u aaday magaaladaas ah in uu dadkii lacagaha soo diray lacagahooda u kala celiyo, maadaama meeshii gurigii laga dhisi rabay ay ahayd magaalada Muqdisho. magaaladana Muqdishona saacadan la joogo aan lagu noolaan karin ama qof xil dowladda ka hayo uu ku noolaan karin. Balse daawade, adiga maxaad kula talin lahayd Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu sii joogo magaalada Muqdisho amase in uu ka ambabaxo oo iskaga tago si uu amnigiisa khalqal u galin? Qodobka saddexaad ee warbixintanada. Hogaamiye ku-xigeenkii Al-Shabaab Mudane Mukhtaar Robow Al-Mansuur ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalka Soomaaliya. Mukhtaar Robow ayaa lagu sheegaa nin mayal adag oo weli aan ka toobadkeenin xagjirnimada Al-Shabaab oo dadka siyaasadda u ololeeya ay dhaheen waxay khatar ku tahay amniga dalka Soomaaliya. Siyaasiyiin fara badan oo ka tirsanaa dowladdii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saacadihii hadda la soo dhaafay iskaga baxay magaalada Muqdisho kuwaas oo la baqayay khatar amni darteed, maadaama la doortay Mukhtaar Robow Al-Mansuur oo ay naftooda uga cabsi qabaan inuu khatar gelin karo. Dadka degan Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo ee caasimadda u tahay ayaa si fiican u taageersan Mukhtaar Robow Al-Mansuur soona dhaweynayo in loo magacaabo xilkaas. Haddaba Mukhtaar Robow xagjirnimadiisa ayuu kusii joogi doonaa mise
noqon doonaa muwaadin Soomaaliyeed oo u adeego wadankiisa. waad mahadsantihiin. waxaa si sharaf leh idinkaga codsanayaa mar labaad muuqaalkan inaad leegareysaan. haddaad leegareysaan muuqaalka waxay ka caawinaysaa inuu meel fagaaro. haddaad sheer gareysaanna waxaad la wadaagaysaa asxaabtaada. waad mahadsan tahay.